kulanti waxaana wanaagsan khiyaarta naga daawata janaalka tusmada fiilmada meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan mowduucdeena arrimaha dhacdooyinka xiisaha leh iyo muuqaal cusub oo aan ku soo qaadano waxyaabaha xiisaha leh ee dib u milicsiga arrimaha Bollywoodka iyo koonfurta la xiriira. muuqaalkan ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa xiddigta Rashmika Mandanna taasoo markaan kamid ah tirshooyinka ugu shacbiyada badan ee Hindiya sidoo kale lagu yeero National Crush ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa muuqaalkeeda laga soo bilaabo Ram Charan loo geeyay Shahid Kapoor xiddigada ee iska diiday inay filim ay kala soo muuqato sababaha iyo sidoo kale inay ka shalaysay haddii ay xiddigadan filmadooda ay kala soo muuqan ayaan warbixintan aan ku qaadaa dhigi doonaa. Pushpa Star Rashmika Mandanna ayaa waxay tahay mid markaan xirfadeeda xagga jaleynka heerkii ugu sareeyay markaan u maray marka loo geeyay inay tahay xiddig aan dib u laaban ayaa waxay tahay mid lugaheeda cagageeda iyadoo isku istaajisay haatan waxay ka mid tahay tishooyinka loogu hadalhaynta badan yahay qaybaha Bollywoodka iyo koonfurtaba. markaan waxaa idin haynaa warbixinada xiddigada ugu waaweyn ee koonfurta iyo Bollywoodka ee iska diiday in film ay kala soo muuqato. hadda waxaan ku bilaabi doonaa Shahid Kapoor. Rashmika Mandanna waxaa loo soo jeediyay film in Shahid Kapoor kala hogaamiso filmka Jersey hasaate xiddigtan ayaa waxay iska diiday filmkaasi sabab la xiriira in ay doorkeeda filmkaasi ku leedahay oo sanayd mid saameyn leh. intaas kadib ayaa filmkaasi waxaa ka soo muuqatay atishada Moonal Thakur taas oo doorka filmkaasi qaadatay. Rashmika Mandanna sidoo kale waxay iska diiday in filmka la soo muuqato Ram Charan. Rashmika Mandanna waxaa loo soo jeediyay in Ram Charan ay kala soo muuqato filmkiis RC15 kaas oo markaan loo bixiyay Game Changer ayaa waxa uu yahay mid directorka Shankar. wararka waxay sheegayaan in xiddigtan ay iska diiday in filmkaasi kala soo muuqato Ram Charan asaate ugu dambeyn doorkaas waxaa qaadatay xiddigta Kiara Advani. sidoo kalena waxay iska diiday in ay ka soo qayb qaadato filmka dib loo sameeyay ee reer Hindiya ee Kirik Party. xiddigtan filmka Hindi dib u sameeyay ee Kirik Party kaasoo Kartik Aaryan oo hogaamiyay ayaa wararka waxay sheegayaan in xiddigtan loo soo bandhigay asaate Rashmika Mandanna ayaa waxay iska diiday filmkaasi inay ka soo muuqato iyadoo saacad u dhahday inay is rabin in filmkaasi ay sameeyso. sidoo kale Rashmika Mandanna ayaa waxay diiday in film ay kala soo muuqato xiddiga Talafati Vijay. 26 sano jirkan atrishada ayaa waxay ahayd dooq koowaad filmka Talafati Vijay ee Master asaate xiddigtan ayaa waxay iska diiday in doorka filmkaasi ay ka soo muuqato waxaan la ogeyn sababaha rasmiga u codsatay in Talafati Vijay filmkiisa guusha weyn gaar ee Master inay ka soo muuqato inay iska diido. sidoo kale Rashmika Mandanna ayaa waxay iska diiday in film uu sameeyo film sameeyaha Sanjay Leela Bhansali. Sanjay Leela Bhansali wararka waxay sheegayaan in Rashmika Mandanna rabo inuu qayb kaga dhigo film oo asiga uu rabo hasaate xiddigtan ayaa iska diiday in ay kala soo muuqato ama in ay film u sameeyso film sameeyaha Sanjay Leela Bhansali idoon aan sababta la ogeyn. markaan eegno Rashmika Mandanna ayaa waxay tahay mid sanadkan Bollywoodka ku soo gashay filmka Goodbye taas oo Amitabh Bachchan ay la waday. sidoo kale waxaa lagu arkaa film kale OTT lagu soo fasaxay Mish Majnu kaas oo kala soo muuqatay Siddharth Malhotra. filmkaas ayaa doorkeedu wuxuu ahaa door Ndoola. xiddigtan waxa uu diyaarsan filmooyin ay kala soo muuqan doonto Ranbir Kapoor ee Animal iyo sidoo kale filmka Pushpa 2 kaas oo kala soo muuqan doonto Allu Arjun. waxaana atrishada kamid tahay atrisho magac ku dhaxlay qaybaha koonfurta ee Hindiya iyo sidoo kale filmkeedu ugu horeeyay qaybta koonfurta ku soo gashay mid magac ay samcada kaga heshay markaan Hindiya ay u soo dhacday oo waxay tahay mid Hindiya xaggeeda shaqo ka bilaabato salmidana filmada koonfurtaan wali waxay tahay mid doorarkeeda filmada ay ka soo muuqato. intaan ku soo koobayna muuqaalkan ku eegayna Rashmika Mandanna iyo xiddigay waaweyn sida Shahid Kapoor iyo Ram Charan oo iska diiday in film ay kala soo muuqato iyadoo sidoo kalena filmadaas intooda badan qaarkood ay noqdeen kuwa guuleysteen. hadda warbixinta ka shaleegno soo asxaabtiin la wadaaga meel walba joogtaan waxaan idin ka leenahay kankiis xigana fi amaanillah.